Okay, caawa waxaan ka hadli rabnaa waxay yidhaahdaan JSX iyo qodob kale ay iga hormaray kolley curriculumkeenaan tegaynaa nidaamkan ayaan hor degsanaynay. Okay, waan ka soo hadalnay wuxuu yahay MBM wuxuu yahay waan ka hadalnay react weli maynan ka hadal waayo waa inoo dambeeya horta arartiisii aan weli ku jirnaa. Okay, marka MBM xalay waxa laale wixii uu qof developer ah u baahan yahay marka koowaad waa inuu ku shaqo galo oo fahan ah oo dhan halkaan aan ku soo sheegnay xalay. Marka caawa waxaan u gudbeynaa conceptiga labaad ee aan rabno inaan focuska si toos u saarno oo la yiraahdo magaciisii JSX. Okay, marka bal caawa waxaan isku dayaynaa marka intaanan JSX ba ka hadal inaan isla fahanno waxay yiraahdaan XML. Okay, XML muxuu yahay horta asiga qodobkaas inaan isla fahanno waayo JSX maxay ka timid horta JSX kelimadaas maxay u taagan tahay JavaScript. Okay, JavaScript XML macnaha. Okay, kelimada noocaas u taagan tahay marka waxaa loo baahan yahay marka koowaad horta in la fahmo XML kan waxa uu yahay in la isla fahmo marka koowaad. marka maxaa la dhahaa XML si fudud haddaan u sheegno waxaa waaye file lagu qaado datooyinka file lagu qaato datada mi maqlosaan hello okay marka waa file lagu qaato dato file lagu qaato dato maxay noqon karaan markaas soo noqon karaa macnaha. Okay, data horta maxaa la yiraahdaa iyadana dib aan ugu laabnay data Soomaalian waa raw facts waxaanan bislayn oo ceeriin ah xog ceeriin ah macnaha tusaale cali oo kaleeto 22 waxaa tiraahdaa kaba soo qabo mail oo kale wax noocaas oo kale meel ku qoran xogtan markan koowaad waa raw fact waa xog ceerin ah oo aan la fahmi karin hadda waxay u taagan tahay kulli waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inaad fahanto isla markiiba aad qaban karto waad dhihi karta kan waa gender loola jeeda kan waxaa loola jeeda da'dii kan waa nameka macnaha waad dhihi kartaa laakiinse warkaan oo kale meel haddii lagu qoro xoogaa da'da kan hadartaan waxaa loo bedeli karaa kabaha lambarkuu qaato 20 waa la dhihi karaa macnaha. marka tan oo kale marka waxaa waaye raw fact waaye marka datada noocaan oo kaleeta ah ayaa lagu qaataa XML-ka markaas ma la fahanteen XML-ka datada noocaas oo kaleeta lagu qaadaa. marka data haddii la qaadayo horta faylal fara badan ay jiraan oo .txt muxuu ahaye faylash waa badan yihiin saa ogtihiin .txt extensionada taqaana maxaa kamid ah .txt maxaa kale .docx saameeyno kii oo wordka .docx extensionkiis .pdf okay iyo kuwa kale oo fara badan macnaha waxyaabo kale aad u fara badan ayaa jiraan kuwaan oo dhan data waa lagu qaadan karaa ilaan hadirtaan qoraalka hadda aan qoraya cali iyo wixii aan qorayay txt ahaan u save garaysan karaa meel waa dhigan karaa docs anoo word isticmaalayo waa ku qoran karaa pdf anoo isticmaalayana waa ku qoran karaa. Okay, laakiin muxuu kaga duwan yahay XML waayo kuwaanba datada waa lagu qaadan karaa oo xog in lagu qorto yaa lagu qaadan karaa sida macnaha XML-ka markaan ku leeyahay waxaa ula jeedaa ama xog waa lagu qaadan karaa ama waxbaa lagu qaataa markaan ku leeyahay waxaa ula jeedaa book oo kaleeto xogaa lagu qaataa sama waxbaa lagu qortaa meesha doontaa u qaadanaysa macnaha saas oo kaleeto u taagan yahay waxaan noocaana faylashaan aad aragtaan. marka XML sheekada intuu kasoo gelaya asiga marka wax kale ma ahan asiga kulley data lagu qaadaan dhiri waayadii hore horta wuxuu soo baxay sanadda markay ahayd kulley sidaan documentation ka akrinayay 1996 yaa la soo release garay wax saas maqal aan arkay maraan akrinayay marka xiliyadaas ayuu suuq soo galay macnaha XML kan XML kan
xilliyadaas suuqa soo galay 1996 wax noocaas aday 900yadii markaas Soomaaliya si fiican isku garaacaysa laakiin ayagana qolo kale tan XML isticmaalayeen marka adduunku waxa waaye kala nooc waay marka XML ka xilliyadaas soo baxay maxaa loo isticmaalaa marka tusaale ahaan muxuu ahaay laba luuqadood programming language laba luuqadood programming aan haysanaa kaba soo qaat okay laba luuqadood programming ayaynu haysanaa luuqadda koowaad aan haysano waxa waaye JavaScript ama JS oo soo gaabi luuqadda labaad aan haysano waxa waaye Java okay labadaas luuqadood aan haysanaa program wuxuu noogu samaysan yahay JavaScript program kale tan wuxuu noogu samaysan yahay Java noogu samaysan yahay labadan program waxay u baahan yihiin xogta inay soo wadaagsadaan tusaale kan Java ah object waxa uu samaysan student la yiraahdo objectgaas wuxuu leeyahay name okay wuxuu leeyahay age iyo waxyaabo kale properties kale tuu leeyahay wuxuu rabaa xogtan ama student datadan in la qaado oo la geeyo JavaScript marka ma fahmi karto objectiga Java uu leeyahay sida uu shaqeynayo waxaas shaqo kuma laha ma fahmi karo waa laba luuqadood laba platform kala ah ilaahay ku mas'uuliyay interpreter-kooda iyo compiler-kooda uu kala duwan yahay shaqaba isku malaha isku si waxba iskulama muxuu ahaa isu si wax iskulama yaqaanaan macna kelmad noocaas ah jirta macna marka isku si wax iskulama yaqaanaan laakiin labadooda waxa fahansan yihiin laakiin isku si uma yaqaanaan macna marka kan Java-da ah object-kan Java-da markii XML la geynayo markii la geynayo JavaScript aan raade way yara adagtahay inuu fahmo macnaha suuragal ma baahan ba aan si kale u iraadaba suuragal ma aha Java object inuu JavaScript uu fahmo suuragal ma aha ana Java object-gan inuu halkaan laga soo rangareeyo la yiraahdo okay wuxuu meeshan ku qoran name oo cali ah iyo age oo 20 ah camal wax noocaas ah meesha ku qoran inuu yiraahdo waa ku adagtahay marka taas si taas loo sameeyo marka oo functionality-ga noocaas oo loo baahan yahay si taas loo sameeyo marka waxaa lagu qasbanaaday in la sameeyo XML okay XML why loo isticmaali waaye .txt okay why loo isticmaali waaye .pdf ya su'aal imaan kara macnaha kulley aragti ahaanteeda markaa iraado kaba soo qabo XML ka faa'iidadu leeyahay waxa waaye oo kuwaas kale kaga fiican yahay waxa la dhihi karaa XML ku wuxuu leeyahay standard loo qoro data-da lagu qorayo macnaha xogta lagu qorayo nidaam lagu qoro leeyahay halka .txt kuwa ama textiga caadiga ah ama muxuu ahaaye baalkan kaleeto PDF-ka iyo docs-ka kuwaas oo kaleeto standard cayiman oo la wada yaqaano ama fudud oo la fahmi karo qof walba fahmi karto looma qoro qof walba standard ku rabo ku qora hada kaba soo qabo halkaan waxaan ku qornay react folderka halkaan file halkaan noo furnaa halkaan soo jeedan halkaan xoga ku qoran soo xogtaan waa file-kan hadda noogu kaydsan tahay waxaan rabnaa inaan qaadno oo Java inaan ka soo dhex aqrino marka xogtaan haddii la yiraahdo waa la akhrinayaa kaliya in sideeda lagu soo qaado banaanka lagu keeno maani wax programming ahaan uu data ahaan uga faa'iideysan karo ma aha xogtaan way ku adagtaa haddii nidaamkaas la mar haddii la yiraahdo aad u adagtaa in xogtaan la bedelo ama tan oo kale la qaato xogahaan oo kale macluumaadkan in la qaado oo programming ahaan loo isticmaalo waa adagtahay marka hadda kaba soo qabo markaan ku leeyahay standard ma laha TXT-ga iyo PDF-ka iyo waxyaabaha la midka markaan ku leeyahay waxaan ula jeedaa waxaan oo kale tusaale aniga dartaa markaan react.js aan qoray hoostiis maxaan dhigay -- aan dhigay bal -- taa maxay taa marka qofka bini'aadanka isla markiiba waa fahmi karaa oo wuxuu dhigi karaa wuxuu ula jeedaa macnaha underline ula jeedaa oo halkaan waa ciwaan macnaha saas uu dhigi karaa laakiin computerka saas ma fahmayo haddii la yiraahdana muxuu ahaay waa la fahansiinayaa waxay u baahanaysaa in code fara badan la qoro oo nidaam fara badan la diyaariyo okay marka way adkaani macnaha marka tan dash aan maanta isticmaalay oo underline aan u isticmaalay qof kale wuxuu isticmaali karaa underscore qof kale
qof ba yani noocu ka helo qof xataa equal wuxuu isticmaali karaa equal fara badan ya marka waxaanu kale marka waxaa aniga aan aragti ahaanteedan ka hadlayaa waxaa waaye standard rasmi ah oo lagu waafaqi karo ma lahan hadda pdf ko kaleeto tusaale file pdf meelahan ka raadiyo kaba soo qabo waxaa tagtaa pictures filekan oo kaleeto yes kan waa pdf furba yes soo ma jidan waxaan bal faham bal adig waxaan in la akhriyo ama standard haddartaan la wada fahmi karo qof walba fahmi karto meeshaan ma yaalo marka that's why kuwan loo isticmaali waayo in data laiskugu dhaafiyo 2 program ama 2 computer inay data is dhaafsadaan waxa diiday waa waxaan macnaha waayo kuwan standard ma laha standardkooda kulli qoraalkan waxaa fahmi karo application gooni ah sida haddartaan pdf reader ko kale hadii la geeyo uu fahmi karaa qoraalka meesha ku qoran oo si qurux badan oo kugu soo bandhigaya haddaan ku rangareyno muxuu ahaa balkaas haddaan ku rangareyno magaciisii pdf reader si qurux badan u soo bandhigaya kuwaana kaba soo qabo faylashaan oo kaleeto way intuu ku soo furo weli open with pdf reader ama document reader saan u soo bandhigaya xoogaa waa qurux badan yahay okay marka waa la fahmi karaana laakiin saan standard ma aha standard oo qof walba uu fahmi karo kulli anaga xataa ma fahmi karna waa cid kale iska badaa muddo kale tana waxa u maleynayaa cid fahmi karto aad u yarta ma bijiri kartabe tan qof ma fahmi karaa sleeding waxoogaa ya marka xogta noocaan oo kale marka standard ma laha kuwaan waxa looga cararay oo xml loo isticmaalay xml-ka standard uu leeyahay waan arkayna laakiin se kuwaan standard ma laha saadarteeda looga cararay in la isticmaalo marka xoogaa karaal ahaada waxyaabo oo markaas aanan lisdhahayo muxuu ahaay waxaa waqtiga maxaa loogu luminayaa karaal ahaada laakiin waxaan rabaa in xoogaa conceptiga si yani base ah in loo qabsado cilmu dhagood le inuu noqdo marba macnaha ya cilmu dhagood waxaa waaye jskasa la dhahaa le waa macnaha ya marka okay marka xml-ka faa'iidadu leeyahay taas waa standard uu leeyahay oo wax lagu qori karo faa'iidadu leeyahay standard uu leeyahay standardkaas oo la fahmi karo oo cid walba oo isticmaalayso ama akhrinayso xogtan standard iyo isticmaali karto ee la wada fahmi karo ayuu leeyahay waa faa'iidadiisa koowaad so waxaad garateen ma that's why marka loo isticmaali waayey muxuu ahaaye baalkan txt-ga iyo pdf-ka iyo kuwa kaloo lamidka iyo docs-ka oo kaleeto in xog lagu qaato xogtaan marka intee la geenayo marka xogtaan oo xml-ka lagu qaadayo lama rabo in human ama bini'aadan inuu akhriyo looma baahno macnaha way ku adagtahay inuu bini'aadanka uu akhriyo ama waqtiga ka qaadanaysaa inuu fahmo oo waxaan isku xirxir waqtiga ku qaadanaysaa laakiin txt-ga oo kale markuu yahay bini'aadanka si fudud ku fahmi karaa wuxuu arki karo isla markiiba akhrin karo laakiin se xml markay timaado qofka bini'aadanka xoogaa waa ku yara adagtaa kulley programrisk waa fahmi karaan laakiin dadka kaleeto oo shacabka caadiga ah inay fahmaan xoogaa waa yara adagtaa waa la fahamteen qodobkaas soo maa marka xml-ka marka standard uu leeyahay marka tusaale kulley code yar oo javan qorno kaba soo qabo glass test ama student private string name magacaasuu leeyahay halkaas attribute ku jiro macnaha ama halkaas fieldiga ku jiro marka waxaan u dhigeysanayaa waxay yiraahdaan long book inuu yani dependency-ga igu jiraan u niyeysanaya macnaha laakiin hadda kuma jiraya si aanan u qorin muxuu ahaa getres citriskii waxay faraha badnaa la qori jiray marka halkaana marka waxaan leeyahay then inta waxaan leeyahay data ama getter okay getter sidoo kale waxaan raacinayaa at all arg constructor okay arg constructor tor kulley o e r waxay ahayd ma garan okay labada markaan qor macnaheedu waxay ka dhigantaa waxaa samaysaa constructor oo argumentigiis kan yahay iyo getterna ii sameey macnaha intaana kusoo koobi karaa halka aan qori lahaa muxuu getris setris fara badan iyo constructor fara badan waxaas intaa qori lahayd boiler breadkaas looma baahna macnaha marka hadda kulley java mar walba waa lasii update garaynaya xitaa haddeertaan looma baahna xataa in kan lasii sameeyo waxaan isticmaali karnaa inaan dhahno intaan dhan uma baahno waxaan dhihi karnaa
muxuu ahay record okay recordkan waxaan dhahnaa students then halkaana waxaan leenahay marka string name that's it okay intaana waa class java oo kale lamid taha macnaha waa inta hadda aan qoro kaleeto in lamida waay waa marka kan java ba dheh kan waxaa waaya java okay codekan waa java marka waxaa rabnaa marka javascript okay javascript ayadana saa loo samayn jira okay javascript conist in la yirahdo daytana waxaa la dhihi jira samayn student tusaale student kaas marka hadda kan kore aan qoray waa class java kulle objectiga maanan create karin marka halkan waxaa dhahdaa kaba soo qabo name then this is waxaa ku jiro xogtaan oo kaleeto cabdiraxmaan oo kale geliya kaba soo qaad kanna objectigaanan create gareeyey mainka gudihiisa kolley public static void mainka waxaa qori jirta iska qor u niyeysa inay qoran yihiin halkan marka waxaan leenahay students then waxaan leenahay new students okay marka halkaan uga baas gareynayo marka wuxuu u baahan yahay name oo cabdiraxmaan ah that's it marka labadan code kan kolley kan waa stylekii iyo blueprintigii kolley glass waa taqaanaan wuxuu yahay ay ka dhigan tahay laakiin halkan waxaa noo yaallo objectigii halkaanna javascriptigi maxaa noo yaallo object labadan object waa isku mid balse labadan luuqadood isma fahmi karaan kaba soo qaba kan waxaan ku qornay kaba soo qaba waxaan ku qoray amiin aan ku qoray amiin magacaasaan ku qoray oo objectigan studentigan wuxuu leeyahay name and attribute magaciisa uu yahay studentiga macnaha magac wuxuu leeyahay amiin la yirahdo kan kaleetana oo javadana wuxuu leeyahay magac cabdiraxmaan la yirahdo labadan application laba program ku kala rangreysan wuxuu u baahdeen lacag inay xogta is wadaarsadaan oo kan objectiga uu leeyahay ama xogta ku jirto in halkan la geeyo kan kaleeto xogta ku jirtana in inta la keeno marka javascriptiga ma fahmi karo codekan javana ma fahmi karto codekan javascriptiga leedahay okay hello ma joogteen okay marka si taas labadan lisu dhaafiyo labadan luuqadood si lisugu dhaafiyo waxaa loo baahan yahay wax u dhexayn kara labadooda luuqadood labada luuqadoodba wax u dhexayn karo waxa u dhexayn kara wax isku dhaafsan karaan waxaa waaye markaan XML waxay yiraahdaan xilligii horaan ka hadlayo hadda kama hadlayo hadda waxyaabo badan waxa kala taa yimid laakiin xilligii horeeto labadooda waxay ku qasbanaayeen inay XML isticmaalaan good marka XML javascriptiga way fahmi kartaa oo way akhrisan kartaa file XML ah javana waa akhrisan kartaa file XML ah marka labadooda wax waa iswadaarsan karaan macnaha laakiin hadduusan XML meesha ku jirin labadooda waa adag tahay inay wax iswadaarsadaan ama waxay sameynayaan kana objectigana waxa loo bedeli doonaa txt file ahaan banaanka loo geyn doonaa kana txt file ahaan deetana hadhow txt-ga waa sheego waxay ahayd muxuu ahaayey faa'iidada darrada uu leeyahay waxaa waa standard rasmi ah ma laha qof walba siduu doono u qoran okay marka labadan luuqad markay u baahan yihiin marka inay wax isweydaarsadaan java oo kaleeto markay waxay sameyn doontaa markay java marka la joogo waxaa la sameyn doonaa XML markii loo baahdo in waxaan loo bedelo waxaa la isticmaali doonaa library la yiraahdo Jackson XML wax noocaas oo kale tan filay library noocaas la yiraahdo yaa la isticmaali doonaa librarygaas marka muxuu sameynayaa wax kale ma sameynayo Java objectigan wuxuu u bedelayaa XML good qodobkaas waa la fahanteen soo ma XML uu bedelayaa XML marka standardka aan sheegay suu u qormayaa marka XML-kaas XML-ka waa fududahay si uu qormayso waa nidaamka HTML-ka HTML-ka waa aragnay HTML-ka wuxuu ahaa tags macnaa meeno tags uu ahaa oo yani ka weyn ka yar balaayo dhan saas lagu qoray macnaa okay HTML-ka marka kan waa kala duwan wax kale kuma kala duwana XML-ka waa user defined tagska la qorayo qofka programmerka ama qofka kaleeto oo yani markaas qorayo baa qoranayo magacuu doon ula bixi doonaa laakiin halka HTML-ka shardi ay tahay h1 in h1 la yiraahdo waa predefined waa hore loo soo qeexay waa wax yani unique ah laakiin si marka XML aad sameynaydo waxaa sameynaysaa kaliya tagga magaca doonta oo la bixi doontaa okay marka halkan waxaa noo yaala object tusaale objectan Java ama JavaScript kan baan raanay objectan waxaa la yiraahdaa student wuxuuna leeyahay
halkaas property markaan xml u bedelayna marka muxuu noqonayaa tag waxaan furanaynaa student la yiraahdo student deetana oo soo xirayna tag ilaa gudihiisa waxaan rabnaa inaan gelino waayo halkan gudihiisa waxbaa ku jira sooma oo waa la attribute kala ku jiro okay halkaan aan tagayna waxaan leenahay student asagana waa soo xirayna okay markaan saas u soo xirno waxaa imaanayo mid kaleeto oo ah name sooma ayadana waan sameynaynaa waxaan leenahay name deetana namekaas waxaa ku dhex jiro soo xir markaad soo xirtid waxaa ku dhex jira gudihiisa marka waxaan gelinaynaa magacii oo ahaa amiin saasoo kaleet macnaha okay amiin ka marka java waa fahmi kartaa javascriptna waa fahmi kartaa marka sidaa darteed javascript waxay sameynaysaa file nuucan oo kaleeta inay objectigeedu u bedesho deetana java u diri doontaa javana waa akhrisan kariyaa filekan okay libraryadaasaa u akhrinayaan oo u turjumaya macnaha markaas waa ila fahantiin soo maa marka xml marka shaqada ugu weyn ay qabanayso maxay ahayd in data laisku dhaafiyo shaqada ugu weyn ay qabsanayso waxaa waaye data storage data in lagu keediyo datadaas marka lagu keediyo waa laisku dhaafin karaa oo laba program xog waa isku dhaafsan karaan ama java iyo php javascript ilaahay kumis madiida luqadaha dhan macnaha waa isku dhaafsan karaan xogta waadix marka xml-kan marka muhiimadda uu leeyahay taasay ahayd oo ah in yani taagiskiisa standard uu leeyahay standardkan ma ahan standard kale loo qori karo oo qof yani siduu doono taag keliya inuu student iska yiraahdo student inuu iska dhaho namekiisa waxaa la dhahaa amiin oo kale qof iskama dhihi karo macnaha waxaanoo kaleeto cid ka helaysa malaha laakiin waa inuu sidaan u qoraa markuu waxaasoo kale u baahan yahay marka tan waa standard la fahmi karo clear marka muhiimadday leedahay taasay ahayd macnaha okay marka labada luuqadood markay xogta saas isku dhaafsadaan xml-kan oo kale markuu saan oo kale loo sameeyo oo javascriptiga loo dhaafiyo javascriptiga wuu turjumanayaa deetana siduu markaas u isticmaali karo hadduu rabo databasekiisa ku keysanayo hadduu doono wuxuu adiga markaas usage-ku u baahan yahay wuu ku samayn doonaa marka muhiimadday leedahay muxuu ahaaye xml taasay ahayd laakiin waayadan dambe hawadaa lagala baxay hadda aad waxaa loo isticmaalaa jason okay jason iyadana sidoo kaleeto waa kulley javascript object notation ahayd laakiinse luuqadaha programming oo dhan waa wada fahmi karan waayo xml-ka luuqad walba iskama fahmi karin librarya u fahmaya ama nidaama fahmaya soomayn sidaasoo kaleeto libraryo luuqad walba java haddii tahay jackson mid yirahdaan ay leedahay oo fahmaya jasonka javascript kulley jason object ay jiro oo bars iyo stringify iyo wax noocaasa jira ilaahay kuma samadiiday php sidoo kale inay leedahay rajeyna mid walba yacni wuxuu leeyahay wax u tarjumi karo jasonka marka xml-kan waa laga sii guuray waxaa looga guurayna waxay ahayd qoraalkeeda markii la qoraayo waqti badan ay qaadanaysaa sidoo kaleetana culeyskeedana aada u badan yahay hadda bal hal mar labadana isbarbar dhigno kaba soo qaba kan aad irtaan waa student object oo xml ah okay bal aan mar kanaan save garay waxaan ku save garaynayaa meesha aan anaga hadda wax ku qoranayno okay team reactor yes halkan aan ku save garaynayaa kaba soo qaab waxaan leenahay xml.xml okay save dheh waa kana xml-ka okay jason asiga lamid aan qorna bal jasonka asiga lamid muxuu noqonayaa kaasun baan furayaa deetana waxaan leeyahay name is amin okay labadooda waa isku xogay haayaan soo ma jeedin isku xogaa ku jirto marka kan jasonkan tago kanaan save garay asagana waxaan leeyahay halkan isla meeshaasaan ku save garanaya jason magaca kulley jason iskala baxay extensionka muhiima okay kanna waa jason kanna waxaa waaye xml labadooda marka yaa culus isku xoogaa ku qoran sooma laakiin markaan qoraya waa dareemi kartaan oo kan tiro badan oo yani waqti badan oo iga qaatay inaan qoro taagan aan soo qoray haddana kiyaan soo celi haddana kanaan qoro haddana mid lamid waxaasaan qoro laakiin kan very easy okay marka labadooda hadda yaa culus marka aan fiirina caadi aan tagno muxuu ahay team reactive bla bla okay waa kana xml-ka fur haddaan furno meeqa waay 47 byte 47 byte jason kana maxaa waay
meeqo 27 bytes marka ku dhawaad laba jibaar waa macnaha ya kanoo laba jibaar maana kanoo laba lagu dhufto duplicate waa okay ayadoo double laga dhig macnaha ya laakiin waa isku macluumaad ay haayaan marka kan waxaa looga guuray waayadan dambe waxaa waaye culays waa macnaha okay culayskaas lagu nacay waayo culayska waxa lagu nacay wax kale ma ahan waxa waaye qof walba byteskaas waa awoodaa oo space uu heli karaa waayo adartan kombiyuutarada iyo mobilada iyo waxaas oo dhan size-kooda aad u waaweyn ya mobile waxaa arkaysaa oo 500 oo GB ah ya marka kama cabsanayo inuu isticmaalo muxuu ah XML-kaas laakiin waxa looga cararayo waxay tahay waxa network la marin doonaa xogtaan ilaa labada kombiyuutar ama labada program hadda front end-gana JavaScript markuu qoran yahay back end-gana uu ku qoran yahay Java oo kaleeto ilaahay kuma ismadin markii loo baahdo in xogta la isweydaariyo internet ama network la isticmaali doonaa marka xogtaan oo iyo tan oo isku wada mid ah labadan oo isku mid ah kan iyo kan oo isku mid ah wuxuu ahay midkan JSON ka isku mid ah laakiin waa kala culus yihiin kan waa double of kan macnaha ya kan double kiisa waay marka internetka markii la soo marsiinayo dadka lacagta uu ka dhameyn lahaada ya ayo marka xogtan soo akhrisid data dii kugu jirto almost kan 47 byte oo data uu ka qaatay kan laakiin wuxuu ka qaatay 20 byte oo data marka waa ka raqiisan yahay sax data mobile kugu jirto xataa uu dhaqaaleynaya marka laakiin haddii program haddii lagu sameeyo XML kan data transmission data uu isticmaalo haddii XML tahay Facebook lacala oo kale hadiiba tahay XML waxaa waaye markaa saas u booqatid ba cabaar yar ay socotid 1 GB waa go'an lagu dhilaa lacag ku shuba ku soo marka laakiin JSON kan faa'iidadu leeyahay waxaa waaye xogtii size-keeda double macnaha kan mid yani kanoo laba loo qaybiyo waaye uu la mid yahay mar walba qiyaas ahaantii clear marka taas waxa loogu guuray noocaas way okay elephant soma marka luqad walba programming luqad walba programming way fahmi kartaa XML waa platform independent computer kuma xirno waanta computerkayga hadaa ku rangareeyay ama aan saan oo kale ugu qoray computer kale haddii la geeyo oo lagu qori karaa mid kale waxaas oo dhan platform independent waa computerkaaga haddaan filekan kuu soo diro isla markii aad furtid waxaan ku qoran unbaad arki doontaa platform sidoo kale waxaa waaye language independent luqad gooni oo ku xiran yahay ma jirto okay Java استعمال كرتا PHP استعمال كرتا Python استعمال كرتا JavaScript wax walba oo luqad walba oo programming ah waa isticmaal karaan marka language independent waa okay marka intaas markaan uga baxo XML waxa la yiraahdaba meesha marka waxa soo galayo XML meesha naga soo galayo marka waxa waaye JSX kelmadan JSX la yiraahdo waa JavaScript XML yeah bal JSX kan kulay waxa aan ka dhigtay React okay waa extension kamid ah JavaScript extension hada JavaScript extension is maxaa kamid ah .js iyo midkan asigana waa la isticmaali karaa labadan okay .jsx iyo .js waa laba extension oo JavaScript leedahay clear marka kan wuu jiray ka hor muxuu ahaa React-gan laakiin caan muusan ahayn cid isticmaali jirtay iyo askaba yareed laakiin React markay timid ayuu aad caan u noqday in la isticmaalana markaasi aad u bilaabatay marka ilaahay kuma ismadiiday XML JSX kan asiga sidoo u shaqeeya sig wax kala ma ahan intaanan qodobkan ka hadlin JSX aan isla fiirino website yiraahdo barnaamij la yiraahdo Allahu musta'an magaciisa Babel I think that's one Babel okay Babel okay oh yes babel.js.io okay ku dhufo halka ma aragtan meeshaan la fiiriyaa mar meeshaan mu jidaan haga sharaxaad yar ay ku tusinayaan ilaa wax ma ku qori karaa yes oo ku qori karaa kaba soo qabo meeshaan object waxaan qoray JavaScript waxaan sameeyay kaba soo qabo const
conist then waxaan iri student kaba soo qaad deetana waxaan ku dhex qoray name then waxaan iri cabdiraxmaan. okay halkaa marka muxuu kusoo saarayaa ya waxaan qoro uu soo saaraya soo ma laakiin bal hal mar meesha uu yani tried out aan dhaho meel wuxuu leeyahay compiler horta wuxuu qabanayaa in sheego horta marka koowaad shaqaduu qabto waxaa waaye browserada adi programaa samaysay maanta javascriptiga waxaan ognahay marar badan inuu isbedel ku yimid soomayn javascript maxaa baalka magaciisii egma script 6 isbedel weynaa yimid soomayn egma script 7 ma soo baxay inuu jiraan rajeynaya marka browser qaar oo egma script 6 aanan fahmi karin aa jiraan adayna concept waxaad qoraysaa const la yiraahdo kadibna arrow function aad qoraysaa ilaahay kuma samadiida alaabo horumarsana advanced aad qoraysaa iyo muxuu ahaaye d structure iyo barnaamijyada noocaas oo kale aad qoraysaa adiga okay browserka qofka client-gaada ama application-gaada isticmaalayo waxaa laga yaabaa inuu isticmaalayo internet explorer noocyadii hore inuu isticmaalayo macquul ah marka constigan internet exploraha waayida hore jiray inuusan fahmi karin aa jiro macquul ah oo asiga isticmaalayo egma script 4 iyo waxyaabaha noocaas kale 5 iyo meelahaas camal inuu isticmaalayo yaa dhici karto hadhood marka application-kaagii functionality ka mid ah ma shaqaynayso marka qof client-ga ma ku eedeyn kartid qof client-ga application-kaadu raba inuu isticmaalo wuxuu arkay inuusan shaqaynayo waxaan application-kooda eber waa website-kooda wax jira maane nagu wada yiro waa ka gudbay meelihiis kale waxay iska raacday marka xoogaa waa aad u xuntaa soo ma marka paybalkan qoladan waxay sameeyaan advanced javascript-gan aad qoraysa ama egmeg script 6-kan iyo waxaan aad qoraysa iyo structure-kan iyo waxyaabahaas oo kale iyo rest-kaas iyo waxyaabaha noocaas aad qoraysid iyo waxay u bedelayaan versionadii hore ee javascript-ga si browser walba uu u fahmo waayo browserada hadda casrigaana waa fahmi karaan browseradii horetana waa fahmi karaan marka meeshaas maxaa ka baxaayo application-kaaga functionality ka mid ah ma shaqaynayo camal warka noocaas ahaa ayaa meesha ka baxayo meelaysaan qodobkaas marka hal mar intaan fiirina kala soo qabo inta waxaa iri student kala soo qabo conist student name away intaan tago waxaa iri gudihiisaan galay kolley gudihiis markaan galo waxaa iri kala soo qaad cabdiraxmaan saasoo kale markaan u qoro hadda waa mid lamid uu diyaariyey kolley saan filaayo okay meel combine la yiraahdo inay jirto maleenaha barnaamijka aad umaan isticmaalin waayadii dambe stage stage 2 stage 3 kolley anything else yeah inte aw may tried out page-kan joogo macnaha reload kusoo sameynaa marka kan saana u qoray kaba soo qaad waxaan qoray kaba soo qabo console dot log then okay halkaan waxaa iri students okay then waxaa iri dots name deetana waxaa iri yes waa kana waa saxan tahay kolley farshanadii dambe uu ka dhigoyaa laakiinse nidaam kale oo la fahmi karan uu qori jiray kadibna waxaa iri kaba soo qabo waxaad u bixisaa not found ama na okay halkan mujidan sidaan okay intaan xiro okay halkan haddaa ila fiirisaan fiiriye meeshaan muxuu keenay intaan aan qornay in la mid ah waa laakiin halkan haddaa fiiris wuxuu keenay waayo barnaamijkan xilli dambe u yimid baalkan null safety-gan oo kaleeto oo yani nalka looga cararayo ama undefined-ka wuxuu yimid farshanada dambeeto marka asiga muxuu sameynayaa mid la mid ah asigoo kaleeto uu sameynaya kulley farsamooyin asiga u gooniyu maraya
iyo waxaanu kaleeto faraha badan usoo soo qoray void bilaahi oo dhan aadan hadda aad is leedahay acuudu billah laakiin labadooda isku si u shaqaynayaan marka kan browser walba fahmi karo versionada horeeto noocii bilowga javascript markuu jiray iyo versionka ugu dambeeyayna way fahmi karaan labadooda laakiin adiga kana qortay laakiin asiga muxuu sameeynaya wuxuu bedelayaa wax la fahmi karo marka babelkaas ayaa la isticmaalaa marka babelkana marka wuxuu sameeyaa meeshaan u socdo waxaa waaye XML hadda maanta haddaan baxno oo halkaan aan tagno kaba soo qaad intaan tagnay waxaan dhaanay intaan tago cd documents kadibna team react kadib waxaan leenahay kaba soo qabo jsx make dir jsx okay jsx folder aan samey cd jsx code ku furkan okay okay كمرك فولدر كان هذا نسميه وكان أنكو فربال كان مجلسي VS Code ك هل كان أنتجا كبسوق أبو إن كان هل كاستجين وحارة فولدر نسمينه كبسوق هلا index.jsx okay لأن extension كان بدنا أد وحا أسوء عن بحي مجلسي React لوجو ده استعمال اسمه جد مركا أنت أنتجا حاجة كبسوق كونستي then نحن داي elements ده حاجة h1 hello wall okay hello jsx okay kaas asasiri okay kana marka waxaan rabaa inaan rangareeyo kaba soo qabo log deetana waxaa iri muxuu ahaay elements save intaan tagay node index run meesha waxaa yimid marka node isla markiiba waa qabsaday wuxuu yiri horta intaan sheekooyinkan kale u gudbinba calaamadan horta iga dhadhacsi waxaa ula jeedaa wax kaleba intuusan ka hadlin macnaha marka sidaan oo kale marka XML-ka kuguma shaqeynayo JSX-kan kuguma shaqeynayo okay JSX markaad rabto inaad isticmaasho kuguma shaqeynayo marka Babel shaqadii qabanaysa Babel kulli akhri musaa u akhrin kartid shaqadu qabanayo marka maxay tahay XML-kaas ayuu wuxuu u compile gareynayaa magaciisii waxay yiraahdaan javascript-ga caadiga ah aan fahmi karno uu compile gareynayaa okay marka si taasaan u sameyno bal hal mar aan tijaabino midkaan hadda in la compile gareyn karo sida loo compile gareynayo aan fiirinaynaa okay halkaan aan tagay kulli clear kanaan marka waan soo degsanayaa npm aan rabaa inaan isticmaalayo kulli npm init -y wax su'aal ay weydiinaan ka wada then npm-ka waa loo init gareeyay okay then waxaan u baahanahay saddex library maxay kala yihiin npm -i ama install caadi u qor haddaad doonto ayadan keligeedan qoraya waxaan u baahanahay mid ay yiraahdaan babel /cli okay waa midka koowaad aan u baahanahay soo garaacayo okay markood waxaan u baahanahay magaciisii si kan loo compile gareeyo oo loogu bedelo javascript sidaas darteedna node.js ama browser uu fahmi karo waxaa loo baahan yahay horta library-gan okay good library kaleto waxaa loo baahan yahay la yiraahdo babel asigii oo ah magaciisii core okay core iyo mid kaloo saddexaad oo asagana ah magaciisii babel / then waxaa la yiraahdaa san plugin dash transform dash react dash jsx intaanoo library aan u baahanahay okay intaan leeyahay balan soo dejiyo haddaanan qoraalka aanan qaldin soo dejinaya npm-ka okay okay waa la soo dejiyey haddaan halkaan tago adduunkan dhanaa meesha la keenay kolley waxaan xalaan ka hadalnay waxay yihiin iyo sida u dhaqmayaan waxaas o dhan waa ka hadalnay marka halkaan saddexdan dependency aa laga keenay
waa ujeedaan saan filayo marka dependency-ga waa israacin kartaa okay qodobkaas liisa ku darso dependency-ga markaad rabto inaad install garaysto wax fara badan haddii yihiin hal mar israacin kartaa marka halkan waxaan keensanay muxuu ahaa midkan okay ilaahay kuma sima diiday marka waxaan rabnaa marka xml kan jsx kan iraade in loo bedelo javascript caadi ah waxaan ku qasbannahay inaan haddana file kale samaysano oo la yiraahdo kulley waa standard war ay libraryadan file la yarabaan waaye filekaas waxaa la yirahdaa dot ilaahay kuma sima diiday babel dot hidden file waaye markaas babel rc yes saas uu qormaya okay intaas markaan ku qoro deetana gudihiisaan tegi doonaa waxaan ku dhex qori doonaa waxaan ku qorayaa ilaahay kuma sima diiday plugins markaan iraado gudihiisaan galayaa gudihiis markaan gala array kalaan furay doonaa arrayga marka waxaan ku qorayaa kuwan okay kanaan tegaya waxaan u baahanahay midkaan soo qaadayaa copy halkaan tag paste ku dheh get comma deetana objectigaan furaynaa isagana waxaan gelinaynaa objectigan gudihiisa bragma then objectigan markaan kala gudihiisa halkaan aan tegi doonaa waxaan dhihi doonaa create element macnaha okay create element taasoo kale aan leenahay then intaas markaan dhaano banaankaan ka imaanaynaa halkaanaan tegayna waxaan leenahay comments slash true or false waxaa doontaba dee false aan leenahay okay filekanna waa noo samaysan labadan markaan samaysano okay halkaanaan tagna marka waxaa rabnaa marka xml kan in loolagu bedelo javascript file caadi ah in loolagu bedelo okay halkaanaan tegaynaa intaan waxaan leenahay clear then mbx kadibna babel kadibna waxaan leenahay fileka aan rabna inaan bedelno maxaa waaye index.js kadib dash directory meesha noola dhigi doona markii la combile gareeyo midka compilerka ah meesha noola dhigi doonaa sheegayna waxaa noo dhigtaan leenahay pages file yiraahdaan kala soo qaad okay intaan leenahay waxaa soo bixi doono intaan waxba qaldin good pages folder la siinay soo ma gudihiisaan gelaynaa maxaa la keenay file oo javascript ah clear filekan javascript ah markaan dhex tago maxaa ku qoran wax la wada yaqaanaa ku qoran waxaan la wada yaqaana maxaa waaye waxaan naqaanaa html-ka markaan vanilla javascript markaan baranayno waxaa ka mid ahaa in element la create gareyn karo ayadoona la isticmaalin ama tag in la create gareyn karo ayadoona la isticmaalin html-ka caadiga ah document maxaa la qori jiray dot create element kadibna elementiga magaciisa ilaahay kuma smadida attributesku uu leeyahay attributes classka iyo id-ga iyo wax lamidka kulli hadarta malahan ay ka dhigan tahay iyo waxa ku dhex qoran macnaha jail dhigiisa halkaana la keeni jiray kulli consolekan sidiisa lagu keeno soo ma jeedaan marka babel hadda waxay samaysay javascript jsx wuxuu bedeshay javascript caadi ah ayuu bedeshay macnaha okay marka qodobkan ma ilahaysaan qodobkan waxaan meeshaan u socday ma ila fahmaysaan okay marka jsx javascript reactiga caadiga la isticmaalayo babelkaana ku dhex jiro babelkan muxuu u qabanayaa translation wuxuu ku sameynayaa javascriptgan jsx kan uu translation ku sameynaya wuxuu bedeli doonaa javascript caadi ah kulley muhiim ma ah inaad configuration kan aad marto configuration waa laga cararaa inta badan yani waqti lumis waa inaad soo diyaariso waxaan oo dhan waxaasaan iskugu soo xirxirto waqti lumis waa waxaas adigu ma baahnin laakiinse muxuu ahaaye waxaas yani configurationkeeda oo dhan qolada react sameynaysaa diyaarisay oo muxuu ahaaye waxaan oo dhan isku soo dubriday keliya adiga hore ka gal codekaagii la waa macnaha okay marka marka faa'iidadu leeyahay marka maxay tahay xml-ka javascript react markii la qorayo ama react markaan qorayno waxaan sameynaa kan laakiin babel yaa wuxuu sameeyaa wuxuu tarjumayaa
javascriptigan qornay wuxuu u tarjumi doonaa bahalkan XML-ka ah java caadigan javascriptigan caadiga uu bedeli doonaa markaas waa la fahanteena soo maa marka ilaahay kuma sima diidee almuhiim kan marka muxuu fududaynaya faa'iidadu leeyahay maxaa kamid ah faa'iidooyin fara badan uu leeyahay faa'iidadu leeyahay waxaa waaye kaba soo qabo kan maanta waxaan rabnaa inaan sameyno javascriptiga caadiga kaba soo qabo iska ignore garee wax meeshan yaala waxaan rabnaa inaan sameyno div ay ku dhex jirto magaciisii div tag oo ay ku dhex jirto h1 okay intaasaan rabnaa inaan sameyno maxaan samayn jirno waxaan leenahay const div saanoo kale aan qoraynaa marka waxaan leenahay create element create garay sorry ayraada intaan tago document dot create element okay gudihiis markaan fiiran marka maxaa yaalo muxuu qaadan doonaa okay methodkan kow horta tag name uu qaadanayaa oo ay diyaarsan yihiin magacyada loo bixinayo kulle html tags kuu qaadanaya sidoo kale halkan wuxuu qaadan doonaa attributes ama options waxay yidhahdaan uu qaadan doonaa datana meesha ka dambeysana wuxuu ku qaadan doonaa childrenk macnaha okay halkaana marka waxaan leenahay kaba soo qabo diffkii saasoo kale u qoranayna okay wax kaleet maba raacinayna inta kale nal wax gudihiisa xataa lagama gelinayo okay intaan taga haddana waxaan rabaa inaan sameeyo haddana magaciisii h1 aan rabaa inaan sameeyo oo ku dhex jirto midkan okay const then h1 then waxaan leenahay document dot create element then waxaan leenahay h1 kaasna waxaa noogu dhex qoran kulli hata attributes ma warano kadbood macnaha attributes waa glasskii iyo id-gii iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta waaya positionka meesha lagu shubaayo waa laakiin halkan gudihiisa waxaan ka rabaa in lagu dhex qoro ama jeeligiisa in lagu dhex qoro kaba soo qabo hello head javascript okay yes okay labadan markaan raba in la is dhexgeliyo maxaan la samayn jira div dot append child man caruurtiisa marka halkan waxaan leenahay h1 okay ya macnaha waxaan rabaa nidaam noocan oo kaleeta okay waxaan rabaa tag div ah saan oo kaleeto oo gudihiisii ku dhex jirto h1 oo halkaan ay ku dhex qoran tahay hello head.js okay saasoo kale kala jeeda macnaha intaan marka qoraysaan isku mid mo marka saan oo kaleetaan rabaa kana marka waxaan rabaa in html-ka lagu soo daabaco halkaan file yar oo html la sameynaya html waxaa tiraahdaa html index.html waaye html then gudihiisaan tagayaa waxaan leeyahay meesha laga dhexgeyn doono waxaasoo dhan waxay noqon doontaa baadigan gudihiisa baadiga id yaraan siisanaya si hadhowt halkaasaan ugu soo xiro inta waxaan leenahay id then id-ga waxaan leenahay baadi kaba soo qaad saasoo kale iska leeyahay then intaan markaan saas kugu xiro javascriptigeena halkan ka isticmaalaan raba maxaa la samayn jira waa iyadii horeto script then src sign src danna index folderki marka kana haddana waxaan u baahannahay inaan halkan kusoo qabanno si loogu shubo baadiga macnaha halkaana marka waxaan leenahay document dot get element by id deetana waxaa la yidhaahdaa baadi saas meyno tag name haddaad doonto waa isticmaali waa soo qabtaa dartaan markaan soo qabtaan waxaan rabaa gudihiisa inaan ku shubano gudihiisa ilaa wax la gelinaa sooma ilaa waxaan hadda lasoo sameeyey html si loo dhexgeeyo waa position laga soo okay saan oo kale taan hey halkaana marka waxaan leeyahay div clear intaan ka baxno kan waxaad ku furtaa live server ma la halka open able server okay error soo saara kulley waxbaan qaladnaa walaana waxba ma soo bandhigin baadigeena gudihiisa waxaa ku dhex jiro baadiga gudihiisa div u dhex keenay divkii waxba kuma dhex qorno kulley
I think position kan inaysan أنا qoraalka عندي قبطان كويسة. okay position kaas baa fadhiin halkan aan leenahay h1 waxaad dhex gelisaa appendiga caadiga soo ma ahayn qoraal xataa waa qaadanaya samayn inner text mascad okay iyadaaba kasii fiican inner text gudihiisa waxaad dhex gelisaa hello head js safe yes waa kana soo jeedin marka waad dareemi kartaa waqtiga naga qaadanaysa intaan inaan qorno in la mid ah intaan hadirtaan oo jsx aan qorno marka maxay noqonaysaa wax kale ma ahan simple kan naga tir kanna naga tir deetana halkaan waxaan leenahay div gudihiisaan gelayna waxaan leenahay h1 gudihiis markaan dhex galna waxaan ku qoranaa hello easy jsx clear isku dhamaat labadooda marka waa equivalent macnaha marka jaf reactiga la sheegayo shaqadii qabanaysa waxaa waaye hard codingkan faraha badan oo soo select gareeyga iyo shaqooyinkaas aadka u faraha badan yaa meesha ka baxayaan okay waxay sameynaysaa iyadu barnaamijyadan la shaqeyn doonaan bibleka iyo waxyaabaha la midka ah iyo libraryada kaleeto kulley ma garanayo waxay yihiin tiraday ka bateen kulley halkaa haddaa fiirisid qolaalaa taagan kuwaasoo dhan la shaqeyn doonaan oo u bedeli doonaan muxuu ahaaye baalka magaciisii xml jsx-ka wuxuu bedeli doonaan javascript caadi ah taas uu fahmi karo browserka okay marka almuhiim qodobka loo socdo marka waxaa waaye intaas waaye xml jsx muhiimadii leedahay waa taas oo waxay fududeynaysaa halkii headkan la qori lahaa waxaan tirada badan intaa qori lahayd qor jsx saa darteedna hala tacaamuli macaynihii low levelka marka virtual damka intuu kasoo geli doonaa waxaa jira waxay yidhahdaan virtual damka react waxay la tacaamul adiga qofka bini aadanka markuu react uu qoraayo wuxuu la tacaamulayaa virtual dam waxay yidhahdaan laakiin react waxay la tacaamuli doontaa iyadana actual damka okay window document bilkiis kanoo kaluu la tacaamulaya react intaa markaan qorno minis react kana u bedelan doontaa kan browserku waa fahmi karaa marka clear iyadaa javascript ka dhigaysa leh inaad iska dhigana la rabo macnaha qodobkaan waxaan halkaan ugu feegaaraya waxaas waay kulley dadka badanaa kama hadlaan waxaan aan maanta o dhan saas ku xeejinayo laakiin waxaan rabaa waxay inay noqdaan wax yacni qofka uu garanayo inay noqoto lama rabo cilmi dhagood kulley waxaan ku aqaanaa difaan u aqaanaa iyo kan jsx la yidhahdaa wax kale ku dara hadii lagu yidhahdo inaad shib iska tirahdaan diidana okay laakiin inaad fahmi kartid muxuu aha bible waxa la yiraahdo oo bedelayo magaciisii jsx ku bedelayo javascript bible shaqooyin kale oo qabtaa jiro oo ah in muxuu ahaaye baalka magaciisii allah mustacaan ha javascriptiga farshanada dambe in loo bedelo farshanada hore sida browserada hore ugu fahmaan hadda hal mar hal shay aan intusii bal kulley kaba soo qabo waxaan tegayaa meeshan kaba soo qaad waxaan tegaynaa biblekaas kulley waxaan rabaa hal mar inaan tusiyo sida biblekaas u shaqeynayo kulley waa ka warqabtaan kanoo kale filekan kana react iska ah kulley kana marka waxaan rabaa inaan ku furo hal mar gadaal u laabo kana waxaan leenahay waxaa ku furtaa code think inuu react yahay kulley mar aan ku feegaarayna waa kan yes okay kan waa react aan rangareyna marka bibleka shaqada ugu muhiimsan oo ka dhex qabanaya rabaa inaan ila aragtaan meeshan waxaan leenahay npm start man mise yan start kulley no package manager ku isticmaalaya waxaan filayaa inuu yahay yan markaan kan soo dejinayo ana badanaa yanan isticmaalaa marka yanan leena macnaha yan mb yan start man yes yan start clear then applicationka waa soo socaya okay waa kana react bal hal mar inta waxaan leeyahay kaba soo qaad waxaa furtaa sourcegiisii key
codekan sourcigiisa waa kana bundle waxaanu qoray soo ma jeedaan waxaan saan u faraha badan asaa qoray kulley mid simple waa ila aragteen oo website-kan waxaan saan u galayay kulley waa wax yar oo saan u qorooyaa wax fara badan waxaa u malaynaya saan u gala macnaha okay intaan dhan wuxuu u dadaalayaa macnaha browserada kale ha fahmaan yani browserada farshanada hore isticmaalaya javascript ha fahmaan waxaa loo dadaalaya intaas waa macnaha okay marka babel waxaanoo dhan saan u tirada badan codeka waa fara badan anaya iyadaa saan u qoraysa macnaha okay laakiinse muxuu ahaaye codeka caadiga haddaan tagno waxaan raadi kolley intaan ku furay yes intaan ku furay yes waa kana codeka caadiga waa kana intaan waa javascript balaa true wax saas maalmaan fiirinayna ahayd intaana ku qoran bis isagana wuxuu sameeyey waxaan tirada badan waxaasoo dhan marka wuxuu u dadaalaya libraryada iyo waxaas koodkooda dhanaa meeshan ku jiro macnaha ma aha keliya intaan qornay laakiin waxaa ku jiro muxuu ahaaye libraryada kaleeto kulley kelmadda adeeta waa aragteen oo malayna ya may lineka keliya meeshan kama shaqeynayso library fara badan halkan ka buuxo ha waxaan dhan meeshan ku jiraan kuwaan oo dhan macnaha inay la shaqeynayaana macquula ma garanaya dirtaan laakiin kuwa la shaqeynayaana shardi ah inay jiraan okay kuwaas la shaqeynaya waxay rabaa in la bedelo ayagana sidoo kaleeto kuwaas saasuu nidaamkaas u maray macnaha saan qiyaasaya waa halkan kelimadan kulley adaatay meeshan aan kusoo aragnay u malaynayaa meeshan website-kan kana soo jeed use strict halkan ayel use strict macnaha waa isla shaqeynayaan kulley okay marka almuhiim JSX kulley probes iyo siduu u shaqeynaya iyo JSX muxuu ahaa ilaahay kuna samdiiday sida loo qoray waxaas oo dhan muxuu ahaa sessionada kale tan ka dhigan doonaa oo habeen dambe kulley probes aan noogu qoran caawa waxaa raba marka XML iyo JSX in concept fiican laga qaato oo la fahmo siday u tacaamulayaan macnaha okay marka JSX waxay fududeysay kulley warka haddaan soo gabagabeeyo JSX waxay sameynaysaa actual damka ayada muxuu ah babelka ama waxa translatorka ah ama compilerka la isticmaalaya hadhuuti la tacaamuli doono ama reacta haddii la joogo ayadaa la tacaamuli doonto documentiga okay laakiin muxuu ahaaye inagu markaan qorayno reacti waxaan la tacaamuli doonaa virtual damka okay virtual damka waa iska JSX kan camal waaye sidaan hadda u qorin oo kaleeto hadhooti reacti ayadoo babel iyo waxay kale tahay library kale tahay kaashanayso yaa waxay u bedeli doonaan waxaan oo kaleeto macnaha okay marka labadan waa aragnay inay isku mid yihiin javascript caadi ah oo babel markuu bedelo noocaan oo kale ku dhigi doona laakiin anaga markaan qornana sidaan oo kale waa macnaha clear marka caawa intaasaan kusoo xiranaynaa habeen dambe insha allah horaan u soconaynaa waxaa inoo har markaan waxaan rajeynaa inay yihiin kolley fundamentalka aan rabay inaan ka hadalno JSX waan ka hadalnay caawa iyo XML wuxuu yahay labadoodaba kolley inaan detailed uga hadlan rajeynaa muxuu ahaaye sida loo qoro iyo sida yani tagiskiisa loo qoro kolley waa iska easy laakiin waxa kaleeto iyo syntaxkiisa kolley syntaxka ay raade syntax of JSX and probes kulley habeen dambaan ka hadli doonaa syntaxka JSX sida loo qoro probeska sida loo qoro iyo sidii yihiin waxaas oo dhan habeen dambaan insha allah soo xiri doonaa sessionkan ama qaybtan xalqadan ahayd muxuu ahaa fundamentals habeen dambaan soo gabagabeynayna habeenada ku sii xig marka toos waxaan ugu gudbi doonaa inaan react si toos aan u bilowno oo aan yani react caadi aan u qorno okay